daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey warkii duhur ayaa daawanaysaan calansida media qodobo xasaasi ah inoo soo socdo faxshil weyn oo soo baxay islamarkaasina guddigii dhamaystirka sharciga doorashooyinka gebi ahaanba albaabada iskugu dhuftay islamarkaasina sheegay in aysan qaban karin taasi ayaa meesha ka soo saartay in villa Soomaaliya ay jaanis ku heshay inay xilka badsato isla markaasina 2 sano ilaa 3 sano ay dib ugu darsato si kastaba haddii guddigani ayaa shalay albaabada isugu dhuftay inaysan mar damba shiri doonin isla markaasina cabsi ay ka qabaan cudurka caabuqa 19 taasi ayaa iminka yuxyux aad u xoogan ka dhex abuurtay siyaasiyiinta kasoo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya guddiga wadajirka ee ku meel gaarka ee diyaarinta xeerka dhamaystirka sharciga doorashooyinka qaranka ayaa hakiyay shaqadii uu maalmahan dambe u waday qaranka isla markaasina sheegay cabsi ay ka qabaan cudurkani inaysan sii wadi karin guddiga wadajirka ayaa tilmaamay in maalmihii la soo dhaafay kulamo isxigxiga ee waraysi ah ee la yeesheen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayna u soo idlaadeen isla markaasina wixii hadda ka dambeeyo ay hakiyeen shaqadooda in sabab la xiriira cudurka caabuqa 19 isla markaasina cabsi weyn ay ka jirto gudaha dalka Soomaaliya gudoomiyaha guddiga xildhibaan Ibrahim Isaaq Yaro ayaa gilinkii dambe ee shalay shir u qabtay ku sheegay in shaqadii guddiga ee socotay la hakiyay cabsi laga qabo faafinta cudurka caabuqa 19 oo walwal badan ku hayo caalamka oo dhan isla markaasina macquul ay tahay inuu Soomaaliya ku sii fido taasina ay sabab u tahay in guddiga uu sii shaqay karin guddiga wadajirka ee ku meel gaarka ah ee soo diyaarinta xeerka dhamaystirka sharciga doorashooyinka qaranka ayaa dhawaan kulamo gaar ah la yeeshay wasiirka arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee hogaamiso Xaliimo Yari kaas oo loogu hadlay diyaarinta xeerka dhamaystirka sharciga doorashooyinka qaranka isla markaasina wax badan meel isla dhigay si kastaba ha ahaatee gebi ahaanba waxaa la leeyahay shaqaymaayeen isla markaasina ilaa iyo cudurkani oo dalka ka baaba'ayo isku soo laabamayaan taas ayaa meesha ka saartay in wax walba la hakiyo isla markaasina sheekada Etoobiyaanka ahayd oo dib loo dhigay doorashooyinkii ayaa iminka villa Soomaaliya qorshoonaysa mar haddii guddigii la yiraahdo ku dhawaaqa oo waxaad yiraahdaan 2 sano ama sanadka soo socdo wax doorashaha dhici mayso kadib 2021 dhamaadkeeda ayaa laga yaabaa si kastaba ha ahaatee haddii ay guddigan ku dhawaaqaan ayaan la ogeyn waxa ay ka yeeli doonaan mucaaradka ugu xoogan ee gudaha dalka ama ka horeeyo kursiga iminka farmaajo uu ku fadhiyo si kastaba ha ahaatee wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa xaaladda ma qulno ayaa la leeyahay villa Soomaaliya madaxa ayay iskula jirtaa isla markaasina mar haddii guddiyaashii ay dhammaanba albaabada loo laabay waxa xiga oo kaliya war inay soo saaraan ama qoraal ay soo saaraan ay ku yiraahdaan doorasho dhici maysa sanadkan dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay tirada dadka xanuunsanaya cudurka caabuqa gudaha dalka Soomaaliya gabi ahaanbana warbixintii ugu dambeeyay soo saaray guddiga sare ee loo xil saaray xakamaynta xaaladda cudurka caabuqa 19 oo shir jira ay ku qabtay isbitaalka Martini ayaa sheegay in xarunta karantiilka Muqdisho lagu hayo 5 qof oo laga helay cudurka caabuqa 15 kala baaritaana lagu hayo ayaa yiri xubnaha guddiga ayaa waxa ay sheegeen in marnaba aan la inkiri karin inuu jiro cudurka caabuqa 19 hase yeeshee aan si rasmi ah loo cadeyn karin in dalka Soomaaliya uu ku faafay cudurkani caabuqa 19 Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed ninka lagu magacaabo Dr. Yuusuf Axmed Cabdirasaaq Yuusuf Axmed oo xubin ka mid ahay guddiga sare ee loo xil saaray xakamaynta xaaladda cudurka caabuqa 19 ayaa sheegay in cudurkani uu yahay mid jira oo dunida ku baahay isla markaasina shacabka looga baahan yahay inaysan inkirin arintani waxa uu cadeeyay in Soomaaliya 5 qofood uu qabo cudurka caabuqa 19 laga helay oo 2 qof ay yihiin ajaanib 5 qof ka mid ahni uu ka bogsaday sidoo kalena lahayo 17 qof oo cudurkani lagu shakisan yahay isla markaasina baaritaan xoogan lagu hayo kuwaasi ayaa la sugayaa inay ka soo baxdo natiijada negative ama positive ayuu yiri ugu dambeyntii waxa uu sheegay in xanuunka caabuqa 19 uu yahay mid qofka uu ku dhici karo hase yeeshee shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay qofka iska shakiyo uu tago xarumaha caafimaadka isla markaasina si degdeg ah u soo baaro si kastaba ha ahaatee Allah naga haayo ama ummadda Soomaaliyeed ayaa Allah ka haayo ayaan leenahay cudurkani oo adduunyada halikay isla markaasina shalay ayuu xiray 1 milyan oo qofood oo cudurkani ku dhacay dunida oo idil si kastaba ha ahaatee dalkaasi Mareykanka ayaa aad ugu badan isla markaasina 200 iyo jarjar kun ayuu sii marayaa gabi ahaanba inta uu soo ritay cudurkani halkaan naga daawanaysa calansida media fadlan la joog dhinaca kale qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya ay danjira farqi uga dhigtay gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed isla markaasina qorshe xasaasi ah ay ka damacsan tahay
dowladda federaalk Soomaaliya ayaa ka gudubtay hal arin oo ku haysatay walaac xoog leh taas oo ahayd in aysan haysan kalsooni buuxda oo ku qotoma sii haysashada maamulka koonfur galbeed isla markaasina halkaasi maamulkaasi madaxweynaha u jooga ee waxay doonayeen in halkaasi gudoomiye baarlamaan ay yeeshaan waa inay yeesheen oo waxaa laga dhigay master faqi danjirihii midowda Yurub u fadhiyay saaxiib dhowna la ah filla Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa koonfurta galbeed ee madaxweynaha uga dhigtay Cabdicasiis Laftagareen balse waxay aaminsan tahay maamulkaasi oo aan lahayn madaxweyne ku xigeen iyo baarlamaan shaqeeya in uu Laftagareen isbedeli karo kana hor imaan karo halkaasi ay ku dhamaan doonto rajadii xukuumadda federaalk Soomaaliya ay ka lahayd si loo adkeeyo kalsoonida aan ku qabno maamulkaasi waxaa fiqi ka dhigay gudoomiyaha baarlamaanka waana qof looga kalsoon og yahay madaxweynaha wixii hadda ka dambeeya xaalka waa hoggaansan yahay halka markii hore aan ka cabsi qabnay in madaxweynaha uu isbedeli karo ayna jirin meel kale oo tiigsano ayuu yiri sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya isla markaasina qaabilsanaa la socodka doorashooyinka koonfur galbeed ee baarlamaanka danjire cali saciid faqi oo ahaa safiirka midowda Yurub ee Soomaaliya ayaa saaxiib dhow la ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana la aaminsan yahay in halkaasi loo geeyay in lagula dagaalamo haddii uu mucaarad isu bedelo madaxweynaha Laftagareen oo xukuumadda Soomaaliya aysan ku qabin kalsooni buuxda maadaama koonfur galbeed aysan lahayn madaxweyne ku xigeen awoodaha maamulka ay hoos yaalana madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka Cabdicasiis Laftagareen ayaa la aaminsan yahay inuu xiriir wanaagsan kala dhaxeeyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud oo ay muddo dheer saaxiibo ahaayeen sidoo kalena ay iska warqabaan madaxda kale ee xisbiyada waana sababta xukuumaddu ugu aragtay in ay awoodeeda ay ku ballaariso koonfur galbeed saameyn weyn ma yeelan doonto shalay ka dhacday ama doorashadii shalay ka dhacday saameyn weyn ma yeelanin ay baadhabo waxaana hadal haynta aad ugu yareed baraha bulshada iyo warbaahinta maadaama hore loo sii ogaa natiijada halkaasi ka bixayso si kastaba ha ahaatee ninkani ayaa ku guuleystay inuu noqdo gudoomiyaha 4 sano ee baarlamaanka koonfur galbeed isla markaasina arrimo badan u fulin doono haddii ay koonfur galbeed ay doonayso filla Soomaaliya maadaama ninkii ay rabeen halkaasi ay soo dhigeen dhinaca kale Somaliland oo ku dhawaaqday go'aan ka dhan ah shirkadaha Fly Dubai iyo Air Arab ayaa warbixin laga soo saaray xukuumadda Somaliland ayaa shirkadaha duulimaadyada ee Fly Dubai iyo Air Arabia ku amartay in aysan ka soo degi karin gabi ahaanba deegaanada Somaliland ay maamusho Somaliland ayaa diyaaradda shirkadahaasi ku eedeysay in ay u hoggaansameen u hoggaansanaadaan amarkii ay dowladda federaalk Soomaaliya ku joojiso duulimaadyadii caalamiga ahaa war qoraale oo ka soo baxay hay'adda madaarka Somaliland ayaa lagu sheegay in shirkadaha lagu wargelinayo in aysan soo caga dhigan karin garoomada diyaaradaha ee Somaliland ilaa amar dambe la siinayo Somaliland qoraal ay ka soo saartay duulimaadyada shirkadahaasi si cad uguma shaacin sababta ka dambeysay balse ilo xog ogaale ayaa sheegaya in xukuumadda ku tuhuntay shirkadahaasi in ay u hoggaansameen amarkii dowladda Soomaaliya kaas oo lagu hakiyay dhammaan duulimaadyadii caalamiga ahaa ay imaan jiray dalka iyadoo markii dambena joojisay kuwii gudaha si loogu hortago faafinta cudurka caabuqa 19 oo dhibaato xoogan ku haya adduunka isla markaasina 2 qofood laga helay sida la sheegay deegaanada Somaliland labadaasi shirkadood ee Fly Dubai iyo Air Arabia waxaa laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta wuxuuna dalkaasi joojiyay dhammaan duulimaadyadii diyaaradaha rakaabka ahaa ee aadi jiray adduunka waxaa xusid mudan in shirkadda Ethiopian Airlines aysan joojin oo weli ay ka degto magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland halkaas oo ay keento rakaab kuwa kalena ay ka qaado iyadoo inta badan isku socodkii dunida loo hakiyay cabsida sii kordhaysa ee cudurka caabuqa 19 si kastaba ha ahaatee Ethiopian Airlines ayaa ilaa iminka duulimaadyadii tooska ahaa ee Hargeysa to Addis Ababa wato isla markaasina Ethiopia ayaa la aaminsan yahay inuu caabuqan ku sii faafay maadaama Ethiopia iminka aysan xirin meel kasta Ethiopia ayaa iminka Shiinaha si toos loogu yimaada wadamada kala furan ee si toos loogu yimaada Ethiopia iyo magaalada Hargeysa si toos ayay ugu soo wada degaan maadaama ilaa iminka dadna ay keenayso dadna ay ka qaadayso si kastaba ha ahaatee Somaliland waxaa la gudboon in xataa Ethiopian Airlines ay joojiso maadaama cudurkani oo adduunka dhibaato xoogan ku hayo dalalkii adduunka ugu waaweynaa oo gacanta taagay isla markaasina leeyahay waa inaad nagala soo gaartaan gargaar degdeg ah haddii aanan hadda cudurka laga hortagin hadhow dhibaato xoogan ayuu keeni doonaa ayaa warbaahinta ama
qolada caafimaadka ay sheegeen ka hortagga unbaa wanaagsan ayaa warbixinta lagu yidhi si kastaba ha ahaatee oo dalka Soomaaliya ama dadka Soomaaliyeed ilaahay ha ka badbaadiyo cudurkani caabuqa 19 oo dilaaga ah isla markaasina adduunka dhibaato fara badan ku haya